dumarka qaar waxay dhibaato ku qabaan lamaanahoodu uu been badan yahay arrintaasi oo dareensiisa kalsooni daro xilliyada qaarna ay danta ku qasabto inay daba gasho xaqiiqda dhabta ah lugaheeda uga soo ogaato arrintaasi oo marka dambe gaarto heer ay adag tahay in la wada noolaado si haddaba mashaakilka looga dheeraado qoyskana uu sii dhisnaado warbixintan waxaan ku baranaynaa wadooyinka loola dhaqmo lamaanaha beenaalaha ah oo sida uu qoro website-ka everyday health wadooyinka ku aadan habka loola dhaqmo lamaanaha beenta badan gabadha waxaa laga rabaa inay fahanto marka hore sababta ku kaleeftay inuu been joogtaha u sheego waxaa dhici karta inuu diidan yahay inuu xaqiiqda sheego si aan loo dhaliilin ama inuu uga baqayo inay dhibaatooto markay xaqiiqda ogaato sidaa darteed waxaa habboon inaad sababta ogaato qodobka kale carruurtu dhaqanka beenta waxay uga daydaan qoyskooda markay ku dhex arkaan arrintaasi oo aan ka harin qofka markuu qaangaaro uu ureer yeesho waxaa dhici karta inuu kusoo barbaaro beenta oo ay caado u tahay xilligaa iyadoo ah gabadha waxaa waajib ku ah inay cudurdaar u raadiso oo ay ka garabsiiso si dhaqanka xun uga adkaado iyadoo wanaag u muujinaysa wax walbana in la wada falanqeeyo ku dayaysa waxaa dhici karta sababta ay beentiis u badan tahay inay tahay xiriir jecel uu lamaantiisa ka qarinayo markii ay ogaato in xiriir jecel ku jiro waa in arrinta ay wajahdo ay kala hadasho si loo gaaro xal dhexdhexaad ah oo dadka oo dhan raaligeliya qodobka kale ninka waxaa beenta ku kalifi kara shaki oo lamaantiisa ka qabo sidaa darteed waxaa waajib ku ah inay ammaan dareensiiso ay u caddayso in wax uu ka shakisan yahay aanay waxba ka jirin si aanu si runa wax walba ugu sheego qodobka kale gabadha waxaa laga rabaa inay lamaanaheeda xurriyad uu si dhab ah wax walba uga sheegan karo iyadoo ku dhowraysa dhaliisha iyo tuunka si uu wax walba uga caddeeyo uguna sheego si dhab ah